السلام عليكم ومقال كيس دحاد oo aynu ka samaynano tusaalayaasha kuwii hanka lahaa hankii Xaarisa bin Suraaqa Xaarisa bin Suraaqa bin al-Haaris bin Adiy bin Malik waxa uu ahaa mid ka mid ah saxaabadii rasuulka waxa uu ka soo jeeday qabiiladii caanka ahayd ee Khazraj waxa uu ka mid ahaa saxaabadii ansaarta ahayd waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee laga dilo ansaar waxa uu ka qayb galay dagaalkii Badr isagoo ah ilmo yar oo dagaalka daawanaya oo biyo ka cabaya ayaa waxa waran dhuunta kaga ganay ninkii la oran jiray Hibbaan bin al-Araqa halkaas ayaana uu ku nafwaayay oo ku geeriyooday Ilaahay raaliha ka noqday waxa nabiga u yimi hooyada dhashay Xaarisa oo la oran jiray Rubayy bintu Nadir oo ahayd eedadii gacan yarihii rasuulka ee Anas bin Malik waxa ay rasuulka ku tiri nabigii Allow miyaanad iiga sheekaynin Xaarisa haddii uu jannada ku jiro waan sabraya haddii kalese waxa aan ugu dadaalayaa oohinta kadib nabigu waxa uu ku yiri Xaarisoy janno kaliya kuma jiro ee jannooyin badan oo jannada gudaheeda ah ayaa uu ku jira inankaagina waxa uu ku jira firdawsada sarreysa waana jannada aanay jirin boos jannada ka mid ah oo ka sarreeya waxa gala nabiyada shuhadada oo ah dadka dagaalka gaalada lagula jiro ku dhintay waxa sidoo kale gala kuwa runta sheega iyo dadka wanaagsan waana jannada uu nabigu yiri naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee haddii aad Ilaahay wax weydiisanasaan firdawsa weydiista Ilaahay ha inaga mid yeelo kuwa ku guuleystay galida firdawsa waa hooyo ka fakaraysa ilmaheedii yaraa ee la dilay halka uu ku dambeeyay janno mise meel kale daawade inta aynu ku kulmano muuqaal kale oo xiiso badan waa Sakariya Haruuni oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum